بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 359 عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: لما قدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه البصرة قال لهم: إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعثني إليكم لأعلمكم سنتكم وإنذافكم طرقكم. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، والأثر صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 16 bishii labaad safar sanadka 1442 islamarkaana waafaqsan 3 bishii tobnaad sanadka 2020. waxaan maanta gabagabaynaynaa oo aharka ugu dambeeyey aan kusoo gabagabaynaynaa ciwaankii fiicnaa ama mawduucii ballaadhnaa aan kusoo jiray ee ku saabsanaa annadaafatu min alislaam, qaybihiisii kala bedelaa eenu soo wadnay ayaanu maanta gabagabaynaynaa. aharkan xadiid nabiga uu yidhi ma aho, waa qowl cumar bin khadaab laakiin haysta asal iyo nusuus qur'aan iyo xadiidba ku qotoma wey. ikhwati filaahi, waxaad ogsoontihiin inaanu qaybo badan oo kala bedelan oo nadaafadda ku saabsan aan ka soo hadalnay. waxaa ku saabsan jirka qofka inuu nadiifiyo oo najaasadii waxaa ka dahiro, cadayga inuu afka dahiro oo cadaydo aanu soo maray, jirkiisa qaybo ka mida iyo waxyaabaha wasaqda inuu ka zuuliyo, sida maaragtay shaarubta u gaabiyo, cidiyaha uu iska jaro, timaha kilkilaha uu iska gooyo iyo wixii lamidka. waxaan soo maray jirkiisa markii la bogay aanu maarata wixii ku soo arooray aan qaybo ka mid a sheegnay, inaan haddana u gudubnay meeshuu degan yahay iyo gurigiisa. cashirka u dambeeyey ee khamiistii xadiidkii sacd bin abi waqaas waa kaan soo qaadanay, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yihi: dahiruu afniyatakum fa ina alyahuuda laa tudahiru afniyataha. guryihiina barxadooda dahira oo nadiifiya wey. lafdigii kalena wuxuu ahaa dayibu, bimacnaa nadifuu saaxaatikum fa ina antana saaxaati saaxaatu lyahuudi. war saaxadiina iyo gurigiina barxadiisa nadiifiya, maxaa yeele barxooyinka midda ugu ur badan waa midda yahuudda wey. idan waa gurigii iyo meeshaa deganayd nadaafadiisa. waxaan maanta ku gabagabeynaynaa aharkan iyo hadalkan cumar bin khadaab ee asna ku saabsan jidadka la marayo. idan macnaheedu waxaa weeye nadaafadda islaamku kaamil wey. meel kaste oo qofka bini aadamka maslaxadiisa ayuu ka hadla. nadaafadii jirkan ayuu ka hadlay, nadaafadii guryaha ayuu ka hadlay, nadaafadii wuxuu ka hadlahayaa wadooyinka iyo meeshuu marayo. wuxuu leeyahay maxamed bin sirin waa taabici jaliila wey. abu muusa alashcari wuxuu leeyahay taabiciga jaliilka oo faqiiha ahaa anas bin malik ayaa aabihiiba adoon sirin adoon buu ahaayo anas bin malik baa lahaa, kadibna waa xoreeyey, wuu mukaatabay, wuu xoreeyey fi waqti cumar. wuxuu dhalay wiilal iyo gabdho wada cajiib oo fuqahaa. maxamed bin sirin baa ka mida, anas bin sirin baa ka mida, yaxya bin sirin baa ka mida, xafsatu bintu sirin baa ka mida. afartuba taabiciin iyo macal aabahood taabiciin fuqaha ah oo cilmigii xumbaaray sharciga ayay ahayn. idan maxamed bin sirin taabici jaliil oo faqiih ayuu ahaa. walaalkii anas bin sirin sidoo kale, walaalkii yaxya bin sirin, walaashii xafsa bintu sirin gabadh faqiihada ayay ahayd. idan usra mubaaraka, qoys barakaysan ayay ahayn. reer basre iyo halkaa iyo waxay ahaayeen ciraaq. maxamed bin sirin baa wuxuu leeyahy raximahu llahu tacaala: lamaa qadima markuu soo galay abu muusa alashcariyu albasrata, basre markuu abu muusa alashcari yimid oo cumar bin khadaab madiine ka soo diray oo gubernatoore iyo barasaba oga soo dhigay basra, qaala lahum wuxuu yidhi abu muusa alashcari, cabdullahi bin qays waa yemani wey, halkaa iyo ciraaq baana madax looga dhigay. dadkii ciraaqi meesha ugu yimid reer basre wuxuu u yidhi: ina amiira almu'miniina, muminiinta amiirkoodii oo cumar ibnu khadaab aha ayaa bacahanii isoo diray ilaykum, idinka xaggiinu iisoo diray. limaada muhiimada usoo diray maxay tahay? liucallimakum inaan idin baro
sunnatakum sunnadiinna inaan idin baro sunnada nabiga inaan idin baro iyo wa indaafakum nadiifintiinna nadaafadiinna duruqakum wadooyinka aad maaragtay nadaafsataan inaan idin baro ikhwatii fi llaahi aharkan waa saxiix weeyaano waxaa soo saaray abubakr ibn abi shayba yaa kitaabkiisa musanafka ku soo saaraya waana ahar sanadkeedu u saxiix khulaasada aharkan maxay tahay ahar maxaa layihahdaa ahar iyo xadiid iyo khabar waa waxyaaba mustalaxa lagu barta weye aharka sida qaalibka culimmadu way kala duwan yihiin ahar xadiid iyo keyrkii waa la dhihi karaa bay dhahan laakiin istilaaxa qaar ba waxay leeyihiin xadiid wixii nabiga loo koryeelaa layihahdaa aharna waxaa layihahdaa wixii aan nabiga uusan ku hadlin oo saxaabada iyo wixii lamidka ay ku hadleen iyo taabiciinti hadalkan wuxuu xumbaarsan yahay abu muusa alashcari radi allahu tacala canhu wa ardaah wuxuu leeyahay amiirulmuminiin basru u sheegayaa iyo ummaddii halkaa degana u khudbaynayo amiirulmuminiin oo cumar binu khadaaba isoo diray oo idinka xagginuu iisoo diray muxuu u soo dirayna inaan sunnada idin baro iyo nadaafadda wadooyinkiina aad nadaafsanaysaan inaan idin barno wadooyinkiina inaad nadaafsataan iyo sunnada nabiga inaan idin baro ayuu iisoo diray riwaayaadka kale waxay ahayd liyucallimakum kitaab allahi wa sunnata nabiyikum kitaabka alle iyo nebigiina sunnadiisa inaan idin baro iyo wa indaafakum duruqakum maaragtay nadiifintiina aad nadiifinaysaan duruqakum wadooyinkiina aad nadaafsanaysaan inaan idin baro maaragtay iisoo diray halka maxalushaahidkana waxaa weeye muhimaadka waaweyn ee abu muusa alashcari loo soo diray oo reer basre iyo ciraaq inuu ku maamulo maarata cumar bin khadaab usoo diray oo usoo dardaarmo inuu u sheega loogu talagalay waxaa ka mid a kitaabka alle inuu baro kitaabka alle iyo axkaamtiisa iyo macaanidiisa inuu baro iyo sunnada nabiga inuu baro iyo inay wadooyinkooda ay nadaafsadaan oo wasakda iyo qumaamaadka iyo qashinka wadooyinka ay ka qaadaan ayna ku daadinin u fiirsada kitaabka alle barashadiisa iyo sunnada nabiga barashadoodii waxaa cumar bin khadaab uu ku xidhiidhiyey oo abu muusa alashcari loo soo dhiibay iyo wadooyinka iyo jidadkay marhayaan inay nadiifiyaan qofka muslimka waa nadiif weye marka jirkiisi baa nadiifa maaragtay gurigiisi baa nadiifa wadada uu marhayaa nadiifa xadiidkaas waxaa taageeraya ama uu hoosgelahayaaba xadiid kale oo fi saxiix muslim ku sugan min xadiid abu hurayra bal nabiga inuu nadaafadiiba uu geliyey wadooyinkoo la nadiifiyo inayba min acmaali liimaan inay ka mid tahayba wuxuu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam xadiidka abu hureyre warina fi saxiix muslim aliimaanu bidcun wa sabcuun aw bidcun wa situun iimaanku waa dhowr iyo 70 shucba weye aliimaanu bidcun wa sabcuuna aw bidcun wa situuna shucba aclaaha ama afdaluha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat aladaa can اطariiq aw kama qaala alayh salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi iimaanku waa dhowr iyo 70 qaybood weye shucab dhowr iyo 70 furuuc weye qaybood ama waa dhowr iyo 60 qaybood wey waa shakuraa weye midda ugu saraysa waa qowlu laa ilaha ila allah shahaadateynka wey midda ugu hooseysana imaadat aladaa can dariiq wey dariiqa laga zuuliyo waxyaabaha maaragtay dadka dhibaya oo dhagaxa iyo qodaxda iyo geedaha iyo wixii wadada la dhigay laga qaado bal u fiirsada ikhwati fillah idan tawxiidkii wuxuu nabigu ka mid dhigay oo ku soo daray camalka khaasatan wadooyinka oo la nadiifiyo waxa dadka dhibaya laga qaado imaadat aladaa can ariiq wadada oo waxyaabaha mu'diga oo bini aadamka dhibahaya hadday dhagax noqoto haddii wax mudan noqoto iyo haddii wax kale noqotoba uu ka qaado laga qaado tawxiidkii ka mid imaadat aladaa can ariiq halkana wuxuu yihi abu muusa alashcari amiirkiina cumar bin khadaab wuxuu ii soo diray idinka ayuu iikiisoo dirayoo inaan idin baro sunnada inaan idin baro sunnadiina iyo nadaafadda aad nadaafsanaysaan wadooyinka inaad nadaafsataan inaan idin baro riwaayadda kale liyucallimakum kitaab allahi wa sunnata nabiyikum kitaabka alle inaan idin baro iyo sunnada nebigiina
iyo wa indaafakum nadiifitaankiina aad nadiifsanaysaan duruqakum wadooyinkiina aad nadiifanaysaan. idan wadooyinka oo la nadiifiyo ikhwatii fillaahi, idan wadooyinka oo la nadiifiyo oo wixii wasakha laga qaado, wixii xun laga qaado, laga ilaaliya marka horena la dhiginba, waxa weeyaan waa qayb oo islaamka ka mida wey. annadaafatu min alislaam baan ciwaan ka dhigna. maca alasafi shadiid ikhwatii fillaahi, muslimiintii in badan oo kamida wadooyinkooda waxay noqdeen qashin qub bay noqdeen, qashin qub ayay noqdeen. bacdu duwal maaragtay wadooyinka ma marin karti, qashin iyo wax oo dhan xagga sixada iyo caafimaadka dhib badan bay u keenaysaa qashinka wadooyinka lagu daadin. mandarka iyo muuqaalka dhibaato badan bay u keenaysaa. waxaa kaloo dhibaato u keenaysaa maaragtay magaalada bilicdaadii. waxaa kaloo dhibaato u keenaysaa dadka marahaya gaadhigii baan mari karin, shaksigii lugeynaha baan mari karin, wixii oo dhan baan mari karin. idan intaasoo dhan ba isku daraysan, bilicda magaalada oo foolxumayso, caafimaad daro, dadkii oo jidkii wixii loogu talagalay jidkaas inuu wuxuuha ay dadku maraan oo si sahlan u maraan oo fiican, intiiba ma suurtagelayso. idan ikhwatii fillaahi, qofka muslimka sidiisuu mas-uul u yahay marka waxaa la rabaa mas-uuliyadda inuu dareemo. wasakda iyo qashinka asaga uu isticmaalay, haddii gurigiisa dhexdiisa uu ku isticmaalay, haddii maqaaxiyo hodheel uu lahaa uu ku isticmaalay, in meelo loogu talagalay uu geeyo, ama meel lagu guba ha ahaato ama meel lagu xabaala ha ahaato. nidaamka meeshaa jira ee dowladda ana inay hagto oy dhiiri geliso. marka dowladdii baa hadlaynaysa, shacabkii baa carelesska, wixii oo dhan. idan caafimaad daraa ka imanaysa meesha. wadooyinka qashinka markii lagu guro lagu daadiyo, caafimaad daraa ka iman. caafimaadkuna waa muhiim wey, inuu qofka muslimka uu caafimaad qabo waa muhiim wey. magaalada bilicdeedii baa halaabaysa, dadka wadadii maritaankoodii baa halaabahaya, waxaasoo dhan baa wada halaabaya. idan saxaabatu rasuulillahi hataa muhiimaadka ay baran jireen waxaa ka mid a wadooyinka sida loo nadaafin lahaa. abu muusa alashcari uu lehay, cumar bin khadaab wuxuu madiine iga soo diray oo basre iigu soo diray inaan diintiina idin baro, kitaabka qur-aanka idin baro, sunnada nabiga idin baro, iyo wadooyinka saad u nadiifisaan inaan idin baro. nadaafadaad nadiifinaysaan wadooyinka. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa ilxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusan ugu nirsaaqa xaqa raacitaankiisa. xaqiiqatan waa arrin aada iyo aad markaa in loo dil istaago u baahan, inaa qofka muslimka uu nadaafadda ku dadaalo oo wadooyinka laiska hagaaji, oo maamulka iyo wixii dowlad haya ay hagaajiyaan, oo dadweynuhu uu hagaajiyo, mas-uul iska dhigo, oo qof kastaba mas-uul ahaado. qashinkiisa hadduu maaragtay habeeyo, waxa weeyaan ummaddu way badbaadaysaa. laakiin hadduu nin kasta yidhahdo maxaa iga galay, bulshadii waxaa dhumaysa, nadaafadoodii baa hallaabaya, caafimaadkoodii baa hallaabaya, wadadii isku gooshitaanka isku gooshayeen baa hallaabaysa, waxaasoo dhan baa wada hallaabaya. lamaa qadima markuu soo galay abu muusa alashcariyu albasrata markuu soo galay, qaala lahum wuxuu u yidhi, ina amiira almu'miniina cumar ibna khataabin radia allahu canhu bacahanii ilaykum, waa ii soo diray idinka xaggiina, liyucalimakum inaa idin baro sunnatakum, sunnadiina inaa idin baro, iyo wa indaafakum nadiifitaankiina aad nadiifsanaysaan, duruqakum wadooyinkiina aad nadiifinaysaan inaa idin baro ayaan idinku imid oo iigu soo diray cumar bin khadaab. atharka athar saxiixa. abubakr ibn abi shayba ayaa kitaabkiisa musanafka ku soo saaray. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusan nugu nirsaaqa xaqa raacitaankiisa. hal mar baan ku celinhayaa. alxadiidu 359 can maxamed bin siriin raximah llahu tacaala qaal, lama qadima abu muusa alashcariyu radia allahu canhu albasrata qaala lahum ina amiira almu'miniina cumar ibna khadaabin bacahanii ilaykum liyucalimakum sunnatakum wa indaafakum duruqakum. rawaahu abubakr ibn abi shayba fi musanafihi walatharu saxiix. hada wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.